السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن السلامي إلهي وحان كغرجينيا عمر دير عبادة أميستران عافمادان ملكستو جوجتان كسو دوادا جنالكس أنفع أديكو آدي آدو محدثن وأنيو ولاشين شكرم آدن maanta waxaan jeclaysiin inaan idin la wadaago qiso kale oo ku saabsan ninkii hooskiisa ka carari jiray. Ninka marka wuxuu aaminsanaa hooskiisa in uu yahay caqabada ugu koobaad ee ka hortaagan guushiisa. Mar walba wuxuu islahaa hadii hooskaaga aad ka badisid aad ka hormartid uu soo qaban waayo macnaheeda taas waxay weeye inaad tagtay oo tilaabsatay. Ninkaas waxaa kaloo ka walwali jiray dhawaqa lugihiisa ama sharqanta lugta markuu soconayo. Ninkan ayaa naag la talisay maalmaha kamid ah markaas wuxuu ku tiray niyahow hooskaaga kaama harayo ee sida ugu guuleysan karto hooskaaga ma kuu sheegaa hadii aad rabto hooskaaga inaad ka guuleysatid ama istaajisid geed un hoos fariiso ama guri un dhaxgal ama fariiso un kadib hooskaaga ma arkaysid oo ku garab socdo ama ku daba socdo. markaas wuxuu dhahay beenaad ii sheegaysaa mana ku aaminsani aniga waxaan isku aaminsanahay inaan ordo un. ninkii ayaa orodkiisii aaminsanaa. ninkaan suu ordi jiray wuu dhintay markii dambe orodkii ayaa dilay. marka qisadan waxaan ka baran karnaa waxay tahay qofka aad adiga tahay ama nolosha iyo nafta adiga haysatid kama ordi kartid balse waxa muhiim ah inaad adiga istaqaanid oo dadka iska taqaanid inaad adiga isbaratid qofka aad tahay aad og tahay shakhsiga aad tahay yaa tahay hadii lagu dhaho waa inaad adiga isgaranaysid ma ahan ma aragtay meesha ku nooshahay ma ninka taladii waa tuu diiday uuna aaminsaneen hooskiinu saa uga hareynin. marka anaga bini aadan markaan nahay waa inaan horta anaga koo isbaranaa anaga ognahay waxaan rabno waxaan ku haminayno waxaan nahay wax aan rabno shakhsiga aan nahay dadka inaan iska dhex naqaano iska garanayno. taas waxay naga caawinaysaa markaas inaan is ogolaano anaga shakhsi ahaan adiga inaad is ogoshahay oo is aqbashid qofka aad tahay dabeecadahaada kadibna wixii aad adiga iska jeclaysanin aad iska bedeli kartid oo wanaag u bedeli kartid wixii aad iska jeclaysatayna hore u sii wadi kartid. marka muhiim ma ahan inaad ka orodid dhibka iyo dhaawaca iyo caqabadaha noloshaada haysto balse waxa muhiim ah inaad baratid oo ogaatid waxa sababay meesha ka imaadeen sida uga tilaabsan kartid uga bixi kartid inaad isku daydid intii awoodaada ah ilaahayna tala saaratid. waa intaas iimaanta sheekadii waa inoo mar dambe xiiso leh hadii eebaha awooda la idmo fadlan dadka la sii wadaag laagna saar adoo mahadsan subscribe fara badan saar waayo waa bilaash like na saar jacaylna saar jacaylka waxa dunida iyo dadka isku xiro mahadsanid waa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. subscribe fara badan saar waayo waa bilaash like na saar jacaylna saar jacaylka waxa dunida iyo dadka isku xiro mahadsanid waa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.